waxaa maalmo dhaweyd soo baxayay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay laakiin wasaaraddu xil ay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyay waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb galaya 33,700 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado waxaan jeclahay in halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda bahaweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxa ay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo 2 usbuuc bil iyo 2 bil waxa ay mararka qaar soo socotay sanado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay 4 sano ee dugsiga sarana ma soo dhigtay sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaan roll numberka sanadkanna sidaan hore u shaacinay roll numberka waxaa laga joojiyey lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay oo ardayda Soomaaliyeed bilaash bay ku qaadanayaan mudane ra'iisul wasaare waxa aan jeclahay halkan inaan ka sheego dadaalkaas weyn ee la galay waxaa maalmo dhaweyd soo baxayay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay laakiin wasaaraddu xil ay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyay waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay inay xaq u siinayso inuu imtixaanka shahaadada uu galo marka guddigaas baaritaankoodii way dhameeyeen ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta ay u fadhisaa ciddii kaleeto ee aan u yeelaninna suuragal uma noqonayso imtixaanka inay galaan iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna waxaa mararka qaar inoo soo baxayay xadgudubyo ka imaanayo dugsiyada qaar ama dad howlwadeenno ka ah dugsiyada qaar iyo howlahooda kuwaasna waxa aanu cadaynaynaa inaanu la xisaabtamayno haddii ilaahay yiraahdo bulshada aan wakiilka ka nahayna aanan ogolaanin isdabamaris in lagu sameeyo waalidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiyaan inay hubsadaan carruurtooda inay dugsiyada saxda ee dhigtaan iyo inay leeyihiin raqamka diiwaanka xog kaydinta wasaaradda waxbarashada oo uu leeyahay arday kasta oo dugsi soo gala laga bilaabo fasalka koobaad ee dugsiga ilaa iyo fasalka 12aad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo awood badan geliyay xoog badanna saaray in ammaanka imtixaanka iyo ammaanadiisaba la sugo oo maanta kumanaan iyaga kamid ah ay gobolada iyo magaalooyinka